munaasabad aad u qiimo badan ayaa loo qabanayaa dufcaddii 20aad ee ka qalin jabisa dugsiga Al-Khayr Gym and Kung Fu ee magaalada Hargeysa. Ku dhawaad 20 arday ayaa ka qalin jabiyay qaybta xirfadaha isdifaaca nafta, kuwaas oo soo dhiganaya muddo ku siman sanad iyo 6 bilood. Daba munaasabada ardaydani ay ku soo bandhigayaan aqoontii ay ka soo barteen dugsigoogani ayaa caawa lagu qabtay gudaha dugsiga Al-Khayr ee magaalada Hargeysa. waxaana munaasabadii qalin jabintooda lagu soo casuumay mas'uuliyiin aad u qiimo badan iyo maamulka iyo macallimiinta ardaydana xirfadahani baraya. haddaba intii aan munaasabadani la furin, ugu horreynba waxaa ardaydii qiimaha badnaa ay soo bandhigeen bandhiga aqooneedka iyo isdifaacii nafta ee ay ku soo barteen muddadii sanadada ahaa ay soo dhiganayeen. waxaana bandhigyadoodii ka mid ahaa